inoogu jirtaa ma ay jirto cadow badan baynu leenahay duulaan baa inagu soo socda in adeerka ha ku mashquuline cadowga eeg kor uga bax waxaan ka baqayaa xanuun dariskeenu uu qabo qolada Soomaaliya ay qabto inaynu qaadno labadii caanagu waa la kala qaadaay xanuunkaas oo ah hasha geela qotee cabaada ooyintan iyo calaacalkan iyo cabashadan iyo dhaartan iyo duulaankan wada socda xanuun miyir weeye ee mid caadi oo la garan karo ma aha qofle waa soo duulaya xadkaydii baan soo xiranaya waa soo qalab qaadanaya waa kugu soo socda dhiiggaagaan banaysanaya dhulkaagaan qaadanaya oo haddana ka cabaadaya wardariskaaga nabadgeli oo dalkooda u daa war magaca la goormay ceeb noqotay war dadka dariskaaga ah ee awdal iyo salal dega dhibaatada ka daa oo dhibaatadii ka dhacday SSC cayn yayan kaaga dhicin goormay ceeb noqotay goormay noqotay waad faragelinaysaa goormaad isa siisay dhulka samaroon oo adigu yeelatay mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaanu leenahay war ka daaya dadka dhibaatada war uga soo baxa guryahooda war intaan dhibaata idinka soo saarin wanaag kaga soo baxa war umuurahooda u daaya war taladooda u gacan baneeya war ha laydinka nabad rabo reer walaaladai USB aynu isku ahayna waxaan leeyahay war annagaa ku daalay walaalow naga durug waxba kagama helaysaan halkaa annagaa kaga daalay 15 sano lahay walaalow naga durko guryihiina ku noqdo aynu kala nabadgalno 15 sanaanu elahay annaga maxamed abiib baa na guubaabiyey markii guryahayaga martidayadii lagala baxay oo yidhi ceeb weeye martidiinna in laydin kala dhex baxo waxaanu idin leenahay wax ka dhigan gobtii dhowrsataan ceeb ka dhiidiyey hadday wanaagga garan waayaan xumaha ku eega إن شاء الله تبارك وتعالى مامورك قول بينو ورجينا ماموركي ودوا عن وقرح بدن إن شاء الله تعالى إلوتي دينو ودعينا مدحوينها إلى كل إلى حكومة